tani waa dhaqan kaaba aad arkaysa dhaqan kaaba inta taqaana way taqaana intaana qonna maanta waxaan u sheegayaa in ay tahay qofka koobaad ee ugu horeeya fikradaha cusub ee Soomaalida dhalinyaradeedu ay ka samayso horumarka bulshada marka loo leeyahay horumarka bulshada waxa weeye wixii dadka wax taraya ama dhulkaaga ka soo baxaya ee aad wax ka dhigto waayahay inta aynan u gudagelin barnaamijkeeda waxaan ka hadlayaa laba mowduuc oo ay leedahay mid waxa weeye maanta anigu maan aqoon iyada iskay bartay wax sababta ay isu kay bartayna waxa weeye waxyaabaha horumarka ay xaafadayada soo gaaray ee ay keentay ee dadka kaga mid noqotay caalamka ka ganacsada mid wata midna waxa weeye waxay maanta inooga baahan tahay inaga hadaynu nahay Soomaalida waayay haddaan ku horeeyo waxa maanta iyadu bulshada ku dhex gashay ganacsatada ay qaaradaha wax isaga gudbisa waxa weeye waxa ka bilowday guri reermiyi oo la tijaabinayo sida dabka loo shito iyo sida dhiriga wax lagu karsado marxaladaas ayay ka bilowday oo baraha bulshada maanta waxay taagan tahay heer warshado u shaqeeyaan oo dhowr dal oo geeska Afrika kamida ganacsigeedu gaaray dalkii dibadda anigu waxaan ahay nin reer Burca ma yihiin qabaa'il ahaan ugu hadlaya laakiin waxaan ahay nin Soomaali ahaan la leh waxaan maanta oo Soomaali ba soo saartay ayaan ku leeyahay aniguna dadka ugu faama marka waxa weeye ugu horeyn waxay samaysay saliid dhaqan kaaba leeyahay magaceeda maantana waxay samaysaa ugu yaraan intaan anigu ka arkay horta 4 item shaamboogi iyo saliidihii oo laba nooc ah iyo miskigi 4 shay horta anigu waan arkay intaan arkay waxaana weeye qofka 4 shay sameeyay horumar ka balaaran buu hindisayaa oo maanta ku maqan yahay warshadahan aad arkaysaana iyaday u shaqeeyaan maanta marka waxa weeye anigu ka Soomaali ahaan waan ku taageersanahay waana horumarka koobaad ee fikradaha dhalinyarada ayay ka koobaad ka tahay lambar koogaasi nin walba waxaad siinaysaa adeeg ku jirtaa waayahay maanta taasi waxa weeye tay iyadu keensatay qodobka labaad haddaan hore ugu maro waxa weeye maxay inooga baahan tahay dhaqan kaabe maanta iyada halkan iskeentay inaga maxay inooga baahan tahay waxay inooga baahan tahay maanta waxaad garanaysaa qof kasta oo Soomaali ah saliidda uu ku dhaashtaa shaamboona uu ku maydhaa haddii aad eegto horta la tayo maaha saliidaha inoo yimaada la tayo maaha sida anigu run ahaanteen aaminsanahay la tayo maaha marka waxa weeye inaga waxay inooga baahan tahay dadka u samaysay waa dadkeena ugu horeey talabaadna waxa weeye in aynu sii gudbino caalamka kula tartan waayo waxaad leedahay maanta dhaqan kaabe ma lahayn inaga leh oo saliid Soomaaliya ka soo baxday dadka waxaan markaa anigu run ahaantii gaarsiinaya inay iibsadaan oo marka dukaan soo taagto ugu horeyn la barkow dhaqan kaabe iga iibid haddaad ka weydo wixii kale ugu gudbisa marka aad yaqaan waayo kuwaas oo kuwa dalka kuwa dibadda waxa weeye way dalban karaan kaargooy waa loogu diri karaa iyagoo jumlada oo iibistaan ay caalamka u iibgeynayaan iyo iyagoo iyagu kaligood isticmaalaya labadaba way dalban karaan waxaana labada saameyn badan dadka dibadda ka dalbada oo inay meel walba gaadho waxa laga yaabaa qofka maanta Mareykanka iyo saliidana in ay sabab u noqoto in warshado ka waaweyn ay Soomaaliya ka soo baxaan saliiday oo Mareykanku inaga saliid naga qaato laakiin maxaa baraya hal midho oo qof isticmaalo halka geeyay waxa aan idin soo qaadanayaa gabaygii Suldaantimo Cadde waxa ahayd midigtaadu waxay xoogsataa maydha gaajada ee magaabada hashaada ka roon maydhanaan kale run buu sheegay waayo isagoo hadal buu sheegay laakiin iyadu ficilkii bay la timi Sooma inaga horumarka naylooga baahan yahay waxa weeye waxaan inaynu nagu leenahay iska dhigno oo kii iibsanayay iyo kii af Soomaali ku sheegay iyo kii xayeysiinay iyo kii horumarinaya dal kala geynay intuba ay awood saaraan ficil ahaan waxa la sheegay rag saliidda iyadu qiimaha ay joogto waynu garanayna laakiin rag baa jiray $500 xabad saliidda ku dalbanayay waxa weeye qofkan isagu uu soo saaray laakiin Soomaali buu soo saaray aniga intaas ay ugu filan saliiddaasaan leenahay maanta haddaan Uganda joogo waxa weeye saliiddana Soomaaliya ka soo baxday baan leeyahay haddii aan geeyay haddaan u geeyay haddaan sito isticmaalayo dadka bulshadana markaa waxa looga baahan yahay waxaan inay horumarka iyagu keenaan si ay dhalinyaro kale ugu dayato oo iyaguna fikrado cusub ula yimaadaan oo horumarka bulshada ka qayb qaataan ay sababtu tahay
dhallinyaradeenna maanta boqolkiiba 70 waxa ay ka hadlaan waynu garanayna waxa ay xiiseeyaan waynu garanayna caqliga goormaynu iska bedelnaa waxaynu iska bedelnaa markaynu waxyaabo ficila la yimaado aad ogaato inaad midigtaada kula soo bixi karto marka iyadana horta aad baan ugu mahad celinayaa wax kaloo deemanka aan anigu ku horumariyay garan maayo af Soomaali iyo deemarkan iibsanayo ku horumari karaya waxaan kaloo laakiin idin hayaa lambarada aan page-keeda ka soo rogay halkan baad ka arkaysaan qofkii kasta uu dalabaadkaaga wad ka dhiiban kartaa run ahaantii anigu waxa weeye nin Soomaaliya oo iyadana Soomaali ahaana qaar baa moodayeen meel wada joogna anigu reer Burcaadana reer Burcana waa meesha kaliya ugu horeysay laga taageeray horumarka dhaqankaaba Burco qurayana faanay waqooyiba waa meesha kaliya laga taageero iminkana waxa weeye way dukaan walba iska taalaa laakiin waxaan u sheegayaa dadka aan ku baraarugsanayn ayaan u sheegayaa beedka Soomaali biyo share gareeya hadalka ku qoran bad ka dalban kartaa dibadda dalka meel kasta joog qofka dalka jooga waxay la tahay dukaan kasta uu ka helayaa ya xarun kasta ay ku leedahay magaalo balse laakiin dadka dibadda jooga waxaan leeyahay qof kaargo ku doonaya qofka ganacsadaaba waan salaamaya share gareeya barnaamijkana horumarka bulshadana wax badan oo laga xiiseeyay baa jiray in share gareysana meel fog gaarsiisan baad ka codsanaya assalaamu calaykum waraxmatullaah